بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في بيت من بيوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala inugu kulmiyey amaakinta ugu khayr badan dhulka oo masaajidda ah. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala siduu inoogu kulmiyey goobtan barakaysan inuu inoogu kulmiyo jannatu lfirdows. weli waxaan ku jirnaa nadwadeennii ciwaankeedu ahaa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun. nadwadaasoo shalay noo soo bilaabatay oon qaybteedii koobaad soo qaadannay, maantana insha allah waa qaybteedii labaad. jadwalka marka aan dejinayno nadwo ama mu'tamar la qabanayo, waxaan inta karaankanaga isku daynaa in wakhti khaasa loo sameeyo dumarka, oo maalmahay nadwadu socoto dumarku ay wakhti khaasa qaataan. waana hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray dumarka wakhti khaasa oo uu la hadlo. marka insha allah nadwadan muxaadaradan yaa nadwada uga khasisnay inay dumarku khaas u leeyihiin ayaga. waxaana inoo gelaya insha allah sheekhana sheekh cabdiraxmaan. muqadimada kulley ku dheeraan mahayo, insha allah sheekha ayaan siinaynaa, kadibna as'ilada insha allah waxaad as'ilo qabtaan yaad soo gudbinaysaan, intay muxaadaradu socota soo qoraysaan. sheekhan insha allah kadibna weydiinaynaa. falyatafadal sheikhana sheekh cabdiraxmaan. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. intaanay mawduuceenna gudagelin, ilaahay baan mahad ballaan u celinaa subxaanahu wa tacaala, allihii na waafajiyey wakhtigiisa ka mida inaan maaragtay ku kulanno beytun min buyuutillaahi suu yidhi sheekh anas jazaahu llahu khayran, innaga oo darsayna ama duruus kala qaadanayna oo markaa allah subxaanahu wa tacaala diintiisa wax isaga sheegaynaa. sidaa darteed ayaa waxaan mahad ballaan u celinaynaa maamulka masaajidka iyo xayigan maaragtay masaajidka ama xaafaddan masaajidka ka dhisan yahay, maamulkaas oo markaa maaragtay mas-uuliyiinta iyo imaamka iyo dumarka iyo dhammaan jamacada ku xidhan madhaba annagoon kala qaadaynin. mahad ballaan baan u celinaa jazahum allahu khayran, sida wanaagsan ay markaa iyadaa maaragtay u soo maamuuseen ama ay u soo markaa maaragtay diyaariyeen nadwadan iyadaa oo shalay bilaabatay. intaa kadib nadwada siduu ciwaanka markaa iyadaa maaragtay sheegay sheekhu, wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduuni. ayaddaa marka waxay kulansanaysaa wixii ku saabsan sharaacada islaamka in wax la isaga sheego oo markaa maaragtay la derso. marka qayb ka mida qaybahaasaan qaadanaynaa. mawduucaan ugu talagalay markaa dumarka maanta inu khasisnay waxaa weeyaan waa muxaadaro ayaga khaas u ah, kana tarjumaysa marka iyadaa maaragtay gabadha muslimadda ah waajibaatuha, markaa maaragtay waajibaatu almar'ati almuslima, gabadha muslimadda ah waajibka saaran ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray. saan ogsoonahay dumarka waa lagula hadlaa maaragtay waa lagula khitaabaa wax allaala wixii ragga lagula hadlo. yani faina almar'ata almuslima mukhaatabatun gaaliban bima yukhaatabu bihi alrajulu fi lkitaabi wasunna. waa saas, wax allaala wixii ragga lagula hadlo iyagana waa lagula hadlaa. saan arki doonno isla mar ahaantaas khitaabka asaga hadduu markaa iyadaa maaragtay ku soo arooro
wax tusin haya inuu markaa maaragtay lafdi markaa maaragtay oo tusin haya in rag laga hadlahayo laakiin markaa gaar aan loo sheegin ama dumarka aan la khasisin way soo wada gelahayaan ibnu qayim wuxuu leeyahy raximahu llahu qad istaqarat fi curfi الshaarici ana alaxkaama almadkuurati bisiiqati اlmudakiriina ida uطliqat walam yaqtarin bilmu'anathi fainaha tatanaawalu alrijaala waاnnisa buu leeyahay haddii la iska magacaabo waliya hadda miaalsa arki doono loo dhawaaqo lafdi markaa maaragtay la iska dhawaaqo ama lagu dhawaaqo marka yada marta xarfunido kale yaa ayuha aladiina aamanuu haddii la yihahdo dumar iyo ragba way soo gelahayaan sidaa darteed baa markaa rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay isagoo markaa maaragtay khitaabka asaga aan ina tusinayo wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum meesha ayadaa markaas dumarka iyo raggaba way wadaagsadaan arrinta ayadaa maaragtay way wadaagsadaan marka ayadaa maaragtay wax allaala wixii marka ayadaa maaragtay xuquuqa oo markaa maaragtay lagula hadlay raggii way dumarka waa soomahayaan ilaa maaragtay waxay leeyihiin soomkaasoo kaleeto ama salaadoo kaleeto ama maaragtay maxaan ku dhahay xajka oo kale waxyaala khususiyaad ay leeyihin dumarku laakiin cumuuman marka ayadaa maaragtay arkaanu islaamki waa lagula hadlay oo in marka ayadaa maaragtay iimaankiina waa lagula hadlay sidaa darteed khitaabkaas rag iyo dumar bay kulansanhayaan maxaa yeelay falmar'atu mukhaaطabaة biاliimaani biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waاlyowmi اlآakhiri biاlqadari khayrihi washarihi wahiya mukhaaطabaة biarkaani اlislaami wاshahaadaتayni wالsalaati wالsiyaami wالzakaati wاlxaj kulli arrimahaasoo dhan arkaanulislaamka arkaanuliimaanka way shamlisteen arrinta ayadaa marka waxay tusinaysaa dumarku inay markaa maaragtay dowr muhima oo meel baan arki doona ay kaga jiraan diinta islaamka oo wixii markaa maar sharcigu khaas ugu yeelay mooyeen wax kastoo markaa cibaadada rabbi subxaana wa tacala ragga lagula khidaabay ayagana lagula khidaabay soonka kale haddaan soo qaadanno xilli waxaa jira ayaga markaa maaragtay macduurin yihiin oo sharcigu dib ay ka soo qaldeeyaana salaadoo kale haddaan soo qaadanno xilli waxaa jirta gabadho ay macduuro tahay laakiin salaadda ma soo qaldaynayso xajoo kale haddaan soo qaadanno gabadha muslimadda ah marka ayadaa maaragtay maxram inay hesho haddaa haddii xoolo hesho waa inay maxram hesho markay xajka aadayso jihaadkoo kaleeto caaisha radia allahu canha nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi idan bay weydiisatay oo waxay tiri jihaadka maan aadno markaa rag wuxu yhi salawatullahi wasalaamu calayhi jihaadukuna alxaju rawahu albukhaariy jihaadka laydinka rabo waa xajka buu yihi markaa marka sidaa darteed aakhariya adduunba markii laga hadlahayo oo qur-aanku ka hadlahayo dumarka waxaa la sheegaa maca rijaal ama ragga macoodaa la sheegaa meelo fara badan haddii aan soo qaadan rabbi subxaana wa tacala ayadka markaa tusinaya wuxuu leeyahay waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo ka hadlahaya qofkii maaragtay camal wanaagsan sameeya oo min dakarin mid lab ah ama rag ah aw untha qof dhadig ah marka ayadaa maaragtay ama qof dumar aan dhahno wahuwa mu'minun asagoo rumaysan meeshaa markaa waa la wadaagsaday camalkii wanaagsanaa gabadhii muslimadda ahayd iyo markaa maaragtay ninkii muslima waa wadaagsadeen falanuxyiyannahu xayaatan طayiba ya waan nooleynaynaa nolol wanaagsan baan noolaynaynaa walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun aakhare markay tagaanna nolol wanaagsan bay ku waanaalhayaan adduunku noolanhayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta ay ku dhaqmeen iyo camalkaa wanaagsan ay la imaadeen ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siinhayaa noloshooda inay barakoodo cimrigoodaa barakoobahaya ceeshkoodaa barakoobi ilmahoodii waa barakoobi irsaaqadoodaa barakoobi marba haddii markaa diinta islaamka marka maaragtay ay ku dhaqmaan sidaa darteed ayaddaa rabbi subxaanahu wa tacala wuxuu ku caddeeyey in markaa lala khidaabay dumarkii iyo raggii labadaba aayadkana wuxuu leeyahay rabbi subxana wa tacaala waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw untha wahuwa mu'minun faulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira dadka laga helay camalka wanaagsan oo rag iyo dumar isugu jira kuwaa tilmaanta laga helay ulaa'ika almawsuun bihadihi sifa almadkuura oo maxay tahay waa aliimaanu billahi waalcamalu saalix yadkhuluuna aljannata jannada rabbay geli doonaan walaa yudlamuuna naqiira naqiirku waa xubka yare timirta ku jira markay culimadu fasirayaan wax yaral markaa lagama dulmin hayo aayad kale wuxuu ku caddeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala
إن مركا أيضا مارتي ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب آيات كاسقن وحيت سيين وحولي ربي سبحانه وتعالى قفك عمل وناسا لي ما هذا رجل دمر أسقوا الرميسان وإنه إيمان لا يقفك عمل وناسا أوليه هي يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب جنة ربي بقى لقلي يقول له حسابين الدون كان الله في عام يكون وراين آخرنا الجنة الله سبحانه وتعالى بقي شذا درست وحكم إذا واجبات كسارا قفك دمرك إن أي صلاة مركا أمارة جدته في وقتها الصلاة على وقتها إن أي جدته لكن وحال فضيدي ونقول لازمين إن أي مساجد كسو حاضرته جماعة سير واجب وتهي قفك دمرك ولا فضيدي بل وحاول مركا جوري أو فضل بدن فمن واجبات المرأة المسلمة أن تؤدي الصلاة في وقتها إلا أنه خفف عنها في حضور الجماعة فلا يجب عليها بل إن صلاتها في بيتها أفضل مركا أمرت صلاة جوري إن كنت كتأفضل بدن لكن ماشي محاجرة دمرك أنت بدن إله نحرستين موين صلاة مركي اللي قديمه ودورك مساجك اللي جاء قديمه أما مقلان صلاة عشان تأبى إن أنتي كعان أي مركا أمارة شيء تكذان قارب لغيا بأن الشقاء اسكت ما يسترها اسكت جوكتو قارب لغيا مركا أمارة إني لغيا ومعذور هيدا مركا أمارة صلاة مركا أمارة أي ظهرنا قطي مركا أيضا كذب صلاة وقت أين تكنين أو اسكت جوكتو وحيالا فربان تخير كأساق ما في عنهم مركا إذا أمارة وحين كيني مركا إذا أمارة قفك سونك وعدنا صلاة الله والسلام عليه إن مركا أيضا حلق الصلاة وقت هذا إنه تكذب قفك إنه فضل بدنتها هاي صادرتد أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحوليه هي لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة مكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه وحسنه الألباني حديثك وحنا يخص صلاة وقت هذا ما كان أمر تقف قص أوقته اسكت دايو وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلهي شركها لو ذات شن هذا مركا أمارتي لودلو أما هل وجبو صلاة فرّ أنا هكتجين أو كس أوجتها هي قفكي صلاة كتجا وكس أوجتها قفك مركا ذي مديس وكبر نقطة حقيسة وماشى مركا وحرب صلاة وقت هذا إن الصلاة كانت على المكتب موقوتة وحرب قول مسلمات مركي هدي مركا أمارتي أي صلاة عذر ذلك الريبين مركي صلاة مساجد كلا قديمة بين أيدي مركا أمارتي ويسقى تحلي مركا لاقمه هدي آخر مغليسو هذيك الناس عادي وقتها إلا سعوت مركا إذا مارتي ويان مركا سيدا درست وحيابها مركا إذا مارتي لقرب كذلك يود مسلمات دا ولقيا إن مركا دومركو أي فضي السلام وحاكم دا إن أي مركا إذا مارتي أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحضر إن لقيهلو إن خير كيس أمران وناقي سوش شيغان حمانتنا يسكرهبان وأميل لقرب قفك الدمر كأكبر مسلمات دا محايا لي سحابيات كدمر كوان سوق أنا دونا يمر كامار تسالون كم ده وحاكم ده إن أمري شرين وناقي حمانتنا يسكره بشرين مال ما كم ده وحاسوم مرتي جبر باسوم مرت عائشة رضي الله عنها عائشة سوم مرتي جبر أنا مرة صليب ومركز سورين والصليب كم مقدام باي قبتي كل قاسة وحيت اسكتور مرة اسكتور اطرحي بيت تور بيت مرة اطرحيه بيت اسكتور بيت وأمر محايا لي فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه بيت المكامرت أي قطعه قنشري ذلك الإمام أحمد بن صاري مركز سيادة درتت جوارنا مسلمات دا وحي أغانيسا وحقد أغانيسا إن شريعة إسلامك يدين إسلامك أي لفتبر كجد بل أيها مكامرتي وحالي هذا الأم هي المدرسة هذا نصر الله بأن مكامرتي جوارنا مسلمات دا دورك أما واجبات كلها دين إسلامك كمشي قصر رجع مركز إذا مارت بل وحنيك الراوي كسر رئيسها سيبك الله في اليوم مركز صالح مركز تفضيل معها لكن هدي أن هو يلهينين أما أن قبل لهينين نين عالم لما أركن نين مدح لما أركن نين مركا مارت تاجر لما أركن رجع يكدم بيا نين وناكسن وحالي هذا إذا رأيته رجلا عظيما نين وين هذا أركته فاعلم أن وراءه امرأة عظيمة وحكدم بيسقف دمرة وآدي آد مركا مارتي وعقل بدن ومركا مارت وناكسن وسوها جاجس وصوت تربيسي الأم هي المدرسة مركا أصلا نقولنا مجتمع dumarka qaybta ay kaga jiraan
haddii la yidhaahdo maalan gurigii waxaa ku soo hooyanhaya zawjkeedii oo afayla ku soo hooyanhaya wiilkeeda ku soo hooyanhaya kii markaa maaragtay ay eedada u ahayd kii habareeta u ahayd kii ayadu u ahayd dhammaan dadko dhan baa ku xidhan mujtamac dhan baa ku xidhan gabdhihii iyadana waa sidaas la eg dadkaas yaa soo hagaajiya yaa soo wanaajiya waxaa soo hagaajiya dumarka ayada markaa maaragtay marka sidaa darteed ayaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dumarka waxyaalaha qaarkood markuu la khidaabahayo o la hadlahayay wuxuu u sheegahayey dhowr arrimood haddii laga helo xataa jannada albaabkeed doon ay ka gelahayaan nabi wuxu uhi salawatullahi wasalaamu calayhi idaa sallat khamsahaa gabadha muslimadda hadday shanteeda salaadood tukato wa saamat shahrahaa bisheedana ay soonto oo bishii markaa maaragtay soonkii iyadoo markaa maaragtay haddii cudurdaal ahayn ay soonto waqtigii ilaan cudurdaalka waan garno way qaldaynaysaa wa xafadat farjahaa xubinka tarankana ay ilaaliso xifdido oo xumaan iyo macsiyo ay ka ilaaliso wa ataacat zawjaha wa ataacat rabbaha wa ataacat zawjaha zawjkeena ay adeecdo ninkeedii markaa maaragtay ku noqonin qof oo markaa maaragtay idaa sallat khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xafadat farjaha wa ataacat zawjaha zawjkeeda ay adeecdo oo markaa iyadaa maaragtay ay ku adeecdo shayga xaqa iyo shayga diinta waan arki doonaa wax yar baan ka taabanaa xuquuq zawjiya maadaama mawduucu uu mawduuc markaa maaragtay shaamila uu banaarun u yahay ee fursadda aan u helnay maanta intaana maaragtay meelo yar baan saa u yarta taabanaynaa kama wada gaadhno wuxuu nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi qiila laha waxaa loo leeyahay gabadha muslimadda ah udkhili ljannata min ayi baabil shiit albaabada janna midkaa doonto ka gal baa la yidhi mid allah midkaa doonto udkhili aljanna baa leeyahay min ayi baabin min abwaabi aljanna jannada albaabkaad rabta ka gal sideedda jannada albaabada midkaa rabta ka gal baa leeyahay maxay samaysay awalan waxay xifdiday salaadihii shanta ahaa waajibkii bay ilaalisay tawxiidkii waa la jiraa maxaan ku dhahdaay shahaadooyinkii wixii waa la jiraa dunuubtii waa ka fogaatay tawxiidkii waxay ilaalisay markaa salaadii soonkiina way soontay zawjkeedana way adeecday markaydaa maaragtay xubinka tarankana waxay ka ilaalisay meel aan ilaahay ugu talagelin subxaanahu wa tacaala oo waxay ka ilaalisay xumaan iyo markaa maaragtay waxaan ilahay subxana wa taala ugu talagelin intaa hadday hesho gabadha muslimadda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay meeshaad rabata jannada ka gal haddaan u soo laabanay mas-uuliyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray xagga axaadiista nabigu xadiidba wuxuu ku caddeeyey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaa tihiin dad ilaaliyaala oo markaa maaragtay wax raaca ilaaliyaal baa tihiin maxaa la ilaalinayaa qof walba mas-uuliyad baa loo dhibiyey xadiidka marka qaybta naga khusaysa waxaa weeye waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha qofka dumarka waxay markaa maaragtay mas-uul ka tahay zawjkeeda markaydaa maaragtay oo mas-uul ka tahay waan la weydiinhayaa maalan calaa sabiili mithaal waxaa weeyaan guriga asaga ah sida sharcigu ogol yahay iyo sida dhaqanka islaamka ogol yahay wax ka baxsan oo ninkii markaa uu si ka warqan hadaa ku samayso haddii ilahay asagoo kaala xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala marka sidaa darteed mas-uuliyaddaas waxaa loo aaminay oo ilahayna qur-aankiisa ugu sheegay oo markaa maaragtay xaafidaatun qaanidaatun bima xafida lilghayb dumarka uu ku tilmaamay faasaalixaatu kuwa suusuuban qaanitaatun mudiicsan ilahay adeecsan xaafidaatun lilghayb bima xafida allah ilaaliya wixii laga rabay inay ilaaliyaan ya lian addoonka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala isku xidho asagu waxayo wixii xunna markaa uu iska ilaaliyo wuxuu ka helay sifaatkaasuu leeyahay faasaalixaatun kuwa suusuuban oo wanaagsan wey qaanitaatun oo mudiicaata xaafidaatun lilghayb bima xafida allah waxyaalaha qaybka waxaa ka mid a ninku guriga markuu ka maqan yahay waa inay gabadha muslimadda guriga ilmaha iyo reerka asaga waa inuu guri muslima noqdo oo inu wax ka maaragtay sharciga wax khilaafsan ayay ku samaynin haddaan u soo laabanno marka ayadaa maaragtay tilmaanta iyo tusaalooyinka ay dumarku marka ayadaa maaragtay ilahay subxan qur'ankiisa uu ku tilmaamay ilaan qaybihii baan ku jiraa weli dadka mu'miniinta rabbi wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad markaa maaragtay sokeeyo ah على سبيل المثال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر dadka mu'minaadka ah ee ragga ah iyo kuwa markaa maaragtay dumarka ah bacduhum awliyaa bacd maxay isku awliya u yihiin ya'muruuna bilmacruufi wanaagay is amraan wayanhawna cani lmunkari xumaantana waa iska reebaan waa tilmaamo markaa maarta qur-aanka haddaan weli usii noqonno
ربي سبحانه وتعالى وحوليه هي إن المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات والقانتين آياتك أيها كجر في سورة الأحزاب واليابا ود مركي رجل الشيء أيها ولا شيء قبلها مسلماتك رجل مؤمناتها كوا مركا مارتي كنت الشيء دمرك قبلها رجع هي كوا دمرك رجت الشيء قانتات كوا رجع قانتين تا قبلها قانتين تا كوا خاشعين تا رجع هي مركا مارتي قبلها دمرك خاشعين تا كوا حصل قيستا رجع قبلها حصل قيستا يا هدي مركا إذا مارتي والحافظين فروجهم والحافظات كل والسدري والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا مركز درتت ساس سولا سعودان ومر الله على مركي مركا رجل الحسود ومركا الحسها يا بل وحان ديه كرا قرانك لقيه لما هيو يعني فضل إلهي كرامته وسي قبل مسلمات قرانك لقيه لما هيو قبل لي سورة الرجال قرانك مكوارتين ما سورة النساء سورة مريم آل عمران بالفيري وفضل من الله سبحانه وتعالى أوسي مركا مارتي دمرك سيدا درتد أيا دمرك الدور كوذا إيا قيبتوذا دينة الإسلام كيكو ليهين وحاكم ذا وانقضان دونا تسالوين الصحابياتك نبي صلوات الله والسلام عليه أول من آمن أيها سكس صدودوبه وخديجة بنت خويلد رج إيا دمر إيا عرور إيا أدومو مركي لغا سوتو كو وحا أهري خديجة نبي إذا رمي صلوات الله والسلام رضي الله عنه أمهات المؤمنين وين رميس النبي صلوات الله والسلام عليه بل الرمين كلي أما هينه maalintii waxay ku soo degay jibriil uu imaaday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi soo qaar xiraaj oo jibriil imaaday oo iqra ma ana bi qaarin uu yiri ee ku celiyay fi sahih al-bukhari markii u dambeysay markii la gaaray asagoo markaa cabsanayo argaxsan markuu soo galay maxaa dhacday laqad khashitu min nafsi wa khadija wala ma tarafta aan baqaybur kulkaas ay kala arintu sidaas ma wallahi baan ku dhaartay لا يخزيك الله أبدا بتر إلهي ينسوي لك هوتشينين ابن هذا لكل من محيلي تلمامة ونقسم بيكون شكتي إنك لا تصل الرحم يا رحمك حيدسا قراوات حيدسا وأركضونا وتصدق الحديث كنت أنا واشكتا رون لوبات بين لومتي كرون بات شكتا وتغري ضيف مرتدا صفة عن سوريسا قفك مرتدا واد سوريسا تغري ضيف يا وتكسب المعدوم وحيابها اللوين وسوك ستات مكامرت وتحمل الكل نبكى الحنبارتاو وحايتها هي مركي وحي مادو عليسي مادو والقادا وإذا مركا إذا مارتي وحيالا بد مركا مرتي وتعين على نوع الحق وحي مركا إذا مارتي قفك اللي يقر درنيا هي مظلوم كي مركا مرتي وانا وادو قرقارتا أرمها سيكون شكتي مركا واسفي وناكسن او دحل قلقة حتى إنك لفتينا وحال ربا قرابة إنان حليلنو إنان رمتا كود دالو inaan markaa maartay wax wanaagsan soo kasabno in markaa maxaan ku raadaay martida la karaameeyo wahalu majir marka khadija bint khuwaylid radiyallahu anha dowrkeeda islaamka ay ka qaadatay markii ay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam garb istaagtay oo markaa kaalmaysay waad ogeedin markaa maartay in lagu bishaareeyay in markaa ila maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala guri dahba fidaa markaa jannada in lagu bishaareeyay gabdhaha muslimaadka haday wadada qaataan maanta oo diinta islaamka maanta meesha markaa maartay ay marayso garab istaagaan oo wax allaala wixii u baahan markaa maartay garab istaag oo u baahan diinta islaamka inay kor ku noqonayso ala sabiil mithal meesha kale degan diin joogtaan waxa la rabaa wax kasto dacwadaas ka hormarayso oo diintu ay ka hormarayso oo wixii khayr oo wanaag inaad lambar 1 ka noqotaan lambar 1 inaad ka noqotaan waa dowrka ay dumarkii muslimaadka hore ka markaa ka galeen waxaad ogsoontihiin oo maaragtay dhacday Umar bin Khattab radiyallahu anhu islaamnimadiisii walaashi Faaduma markaa maartay ka hayd ayaa sabab wahayd ya walaashi baa sabab wahayd waxaad ogsoontiin markaa maartay Muslim in markaa ayada maartay ayadana tusaale cajiib midaal cajiib ay ka tagtay ya Aisha radiyallahu anha ummatul mu'mina waxay markaa faqiihad muhaddithad bay ahayd waxa la rabaa dumarku inay markaa islaamka bartaan oo inta rag u baranaya in leeg ay bartaan oo ina markaa maartay ka soo dhicin ayuu u baranaya diinta li ajli illaahi iyo lil ikhlaasi iyo markaa maartay ayuu isku anfacaan naftoodana ay ku anfacaan muslimiintana ay ku anfacaan ya marka waxa la rabaa
gabdhaha muslimaadka ah markaan intaas ka soo goobno tusaalaha quraanku iyo shay midala iyaga xuquuq baa jirta xuquuqdaas yadaa way qaybsan tahay xaqullaahi markaa ka soo sokeennay ay markaa maartay mareen xaq ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa markay gutaan xuquuqda kale ee soo raacda waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo xaqu zawjayn zawjka ay wada nool yahay gabadh reer leedahay xaqu zawj bay wada leeyihiin ee leedahay zawjkeeda markaa wax allaala wixii aan macsiya ku adeecaysaa oo khayr oo wanaag ah markaa martay guriga ay ku wada nool yihiin waxaa la rabaa guri diinta islaamka ay ka nuurayso qur-aanka laga akhriyo diinta laga barto maxaan ku idhahdaaye xijaabka laga qaato haddii ay markaa gabadh tahay xijaabkeeda markaa maaragtay ay laazimto qaadato salaad dadka haddii markaa ku liitay salaada la tukado haddii markaa maxaan ku idhahdaaye markaa maaragtay dad carruur ay joogaan markaa maaragtay tarbiyo wanaagsan gabdhiyo wiil hadday yihiin markaa maaragtay tarbiyo wanaagsan iyo wixoodii aadaabta islaamka iyo dhaqanka islaamka oo dhan in la baran rabo waa xuquuqu zawj weeye gabadha waxaa markaa iyadaa maaragtay xuquuqda lagu leeyahay ka mid ah ninkeedaas inayna markaa maaragtay ku khilaafin wax allaala wixii markaa maaragtay sharci islaamka uu ogolaado guriga uu noqdo guri kala dambayn iyo markaa maaragtay in markaa maaragtay dadka ayaga ay is-ixtiraamaan laguma kala adkaado guriga oo markaa maaragtay waxyaalaha inta badan dhaca waxaa ka mid ah ama guryaha burburiya waxaa ka mid ah oo hadda soo batay zamanahan dambe dadkii inayna is-ixtiraamayninba qofkii dumarka xaq ninkii zawji xaq u leh arkeenin asagana laga yaabo inuusan markaa u arkeen waxaasoo dhan waxaa keenahaya shareecada islaamka ku dhaqankeeda haddii ay yaraato oo markaa maaragtay la fudaysado dhib baa ka imaanaya laakiin gurigii wuxuu ku barakoobahayaa oo ku waxaysmahayaa markuu noqdo guri loogu talagalay aasaaskiisa foundationkiisa oo markaa maaragtay inuu guri islaam yahay gabadha muslimadda marka waxaa laga rabaa xuquuqda lagu leeyahay inay ilaaliso xaqa ilaahi subxaanahu wa tacaala waa kow xaqa zawjkeeda waa laba xaqul qaraabada iyo raximka waa saddex xaqul jiiraan jiiraanka waad ogsoon tihiin nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay maa zaala jibriilun yuusiinii biljiiraani xataa danantuhu annahu sayuwarisuhu inay isdhexli doonaanba inay isdhexli doonaan oo markaa jiiraankii ay isdhexli doonaan calaa sabiili mithaal kulli jiiraan baa la leeyahay markaa maarta jiiraanku u qaybsan hadda innagoo kale meelahan degannahay jiiraanku xuquuq wuxuu leeyahay markaa maaragtay mid kugu labaa jira markaa maaragtay ilaa 4 xaq buu kuu leeyahay ama 3 xaq buu kuu leeyahay dhahno mid hal xaq buu kuu leeyahay mid 2 xaq buu kuu leeyahay mid 3 xaq buu kuu leeyahay qolada markaa muslimiinta qeyrkooda ee gaalada ah oo markaa maaragtay aan la degannahay xaqu jiraan bay nagu leeyihiin xaqu jiraanka laga waxaa ka mid ah in wixii allaala wixii wanaaga oo markaa innaga aan u muujin karo ayaga inaan dhib loo geysanin inaan markaa maaragtay haddii la wada degan yahay aan dhib xaggeena ka gaadhin bal haddii markaa maaragtay jiran yihiin waa la booqani islaamka loo bandhigi hadday baahan yihiin cunta la siini maxaan ku dhahdaayey ayagoona la qasayn waxa iyaga markaa maartiin xaqu jiraan buu inagu leeyahay xaqa labada jiiraanka labada xaq wala waxaa weeye waa xaqu markaa maaragtay qofka muslimka ah weeye xaqul jiraan wuxuu ku leeyahay xaqii markaa islaamka labadaana iyadana waxay u baahan tahay si gaar ahaan iyagan in loo ilaaliyo oo maalan qofka jiiraanka la wada yahay ee la wada degan yahay waa in markaa maaragtay wax allaala wixii wanaaga la isdhaafsado wixii shar ana markaa maaragtay la kala reebto wallaahi wuxuu leeyahay laa yu'minu wallahi laa yu'minu nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ku celiyay wallahi laa yu'minu man laa ya'minu biwaaqihi jiraan uu markaa maaragtay qofka sharkiisa uusan jiraankiisu ka qaadin uusan markaa maaragtay uusan markaa iyadaa maaragtay ka aamin noqonin ya iska dhaaf in dib loo geystay markaa iyadaa maaragtay xaqaad adiga leedahay inaad siisaba markaa maaragtay laga rabaa xuquuqda la isku leeyahay waxaa ka mid a markaa xaqul jiraan markaan sheegnay kii gaalka xaq uu leeyahay kii muslimka 2 xaq buu leeyahay xaqa muslimka ee markaa maaragtay jiraanka ee qaraabadaana wuxuu kugu leeyahay isagana markaa maaragtay kulligan hadda qaraabaynu wadanahay dhammaan markii la fiiriyo dadkan markaa wixiga markii la fiiriyo waa qaraabo nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi xilli uu la hadlayay saxaabadiisa ayaa wuxuu yidhi markaad masar furataan oo kale markaad furataan waxay leeyihiin markaa maaragtay xidid iyo markaa qaraabay leeyihiine qolyaha la iska ogaaday buuri halkaasuu ku xidhay marka innaga kulligan hadda qaraabaa la wada yahay oo marka ayada qaraabada la yahay waxaa weeyaan oo markaa maaragtay iyo xagga markaa siirka waxaa weeyaan oo ugu dhammaatay xagga wixiga waxaa ka dhalatay markaa maaragtay nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi maariyatu qibdiya oo ibraahim u dhashay baa markaa maaragtay halkaas lagu ilaaliyay buuri maariya ismaaciil hooyadii haajara lagu ilaaliyay buuri markaa maaragtay
halkaas ha lagu ilaaliyo buuri oo xaquuqda ayada ha lagu dhowro inaga marka kulligan hadda marka la fiiriyo dadkan marka wixiga kulli qaraabiyo waxa la siiyay wixii iyo raxim marka xaqu qaraabada waxa weeyaan waa xaqu jiraanka oo xaqa qaraabada iyo muslimku leh oo kaaga sii xaq weyn yahay kuwa kale xuquuqda in ilaahay u baahan waxa weeye oo gabdhaha marka maartay laftooda inaan ogaan loo baahan yahay waxa kamid ah waa xaqul waalidayni labada waalid xuquuqda ay ugu leeyihiin labada waalid xuquuqda ay ugu leeyihiin xaq ilaahay markii laga imaado waxa ugu weyn ee marka laga rabo gabadha muslimadda ah waa xaq marka maartay waalideynki haddii labada waalid intaan iyo haddii nool yihiin labadaba waxay ugu leeyihiin in loo baarimo sameeyo bal iska dhaaf in ayaga loo baarimo sameeyay dadkay saaxiibaha hayeen ay soo wadaan haday dhinteen dadka ayaga in la xiriyo way qul subhanahu wa ta'ala xaqiisa ma sheego illa xaqa qaraabada xaqa waalidiinta ku xirsiya xaqiisa ma sheego illa xaqa waalidiinta wa'budu llaha wa la tushriku shay'an wa bil walidayni ihsana wajada xuquuqda ayada marka maaragtay waalidiinta oo maaragtay la ilaaliyo xuquuqdooda adduunkana waa lagu liibaanaa aakhirana waa lagu liibaanaa xuquuqda kale ee leeyahay marka maartay in la ilaaliyo u baahan oo maaragtay wixiga waa xaq marka maaragtay qaraabada raximka wax la yiraahdo qaraabada in la xiriyo soo sheegnay qaraabada in la xiriyo oo silatu raxim waxay ka rimid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu dhawaado bal ee umriga qofka waxa lagu barakeeyaa inuu qaraabadiisa xiriyo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man habba an yubsada rizqahu qofkii raba in rizqiisa loo baamartay waasiciyo oo rizq waasica la siiyo oo yunsa umruhu oo atharu umrigiisa loo dibdhigaa falyasil rahimahu qaraabadiisa xiriyo falyasim rahimahu qaraabadiisa xiriyo oo marka ayada maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka saaray xuquuqa inaga waxaan qaraabo xiriir dhaqaana qofka markuu adigu soo salaamo ama salaan markuu wax ku siiyo wax sii sida maaha waa silman qadacaka way silman qadacaka qofkii ku gooyay adigana iska xiriir marka martay qofkeena marka maartay waxa kamid ah xuquuqda muslimiinta marka maartay iyadana soo isgaleysaan in la isbaqdo la isdiyaarto oo marka maartay ciyaadatul mariid oo kale qofku markuu jiran yahay jiraanka xuquuq leeyahay waa in la soo booqdo hadduu kaalmo u baahan yahay waa in loo kaalmeeyo waxyaalo fara badan oo laga yaabo dumarka inay halmaansan yihiin laga yaabo inay marka gabadha dumarka ay cibaado badan tahay inay taabo badan tahay inay khayraad badan tahay inay sadaqa badan tahay laakiin waxa laga yaabaa in marka maartay jiraankeedii iyo marka maartay ka nabadgelin dhibkeedii nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi maalmaha kamida yaa dumar ba agta lagu sheegay waxa la yiri hebla gabadha la yiraahdo habeenkii qiyaam leel bay istaagi way taacaysan quraan bay akhrisani sadaqa ay bixini intay wanaagay lagu sheegay wal fiiri كل كاسة وحالي ولكنها تؤذي جيرانها بالي جيران كذا دبتها جيران كذا دبتايو جيران كمان دنا غير شر كذا هي في النار صلى الله عليه وسلم عليه نار بيكون تاس والعياذ بالله هبلك لا شيء وحالي وقف مركا مارته يدو مارته وحي بدن لكن تحسن جيرانها جيران كذا وناكسنيسا وناك في عمل يسميسا هي في الجنة marka waxyaabo culimadu ay leeyihiin ama marka martay ka hadlayaan qofka acmaashiisa xataa waxa baabiin karta in ama dabeecadiisu xumaato ama bini aadmigaas uu ka nabad gali waayo walaasa darteed arrimahan ayaga ama kaba dhalan hayaan qiyaamul leil gabadh baa laga rabaa quraan akhristo waa shay wanaagsan weey waxaan ku raasaday sadaqa inay la baxdo inay qaraabada xidhiso laakiin meesha la isku haysta maxay tahay dibkan marka maartay u geysay jiraanka dibka u soo jiiday marka waa inaan ka fogaano wax kasta oo cibaadadeena wax u dhimi karaa wax kasto cibaadadana wax u dhimi kara waa inaan ka fogaano waxa kale marka maartay iyadana loo baahan yahay oo gabadha muslimadda laga rabaa gabadha muslimadda laga rabaa inay iska warqabaan inay iyo dhaxdo iska warqabaan inay diintooda ka warqabaan inay ilmahooda ka warqabaan inay jiraankooda ka warqabaan inay masaajidooda iyo madaaristooda ka warqabaan oo maxay tahay khayrka ninka masaajidka uu ku sameeyay ama madrasada uu ku sameeyay ama day tacliin tahay haday kor u qaad tahay waa inay number 1 ka noqdaan si aan soo tilmaanay gabdhihii muslimaadka ah ee wanaagsanaa ee horeeyay ee marka maartay jannada lagu bishaareeyay si aan raadkooda marka maartay u qaadno weeyaan waxyaabaha marka maartay gabadha muslimadda laga rabo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu marka hataa maartay uu siiyay waxa kamid ah uu la khitaabay
رجب الله هذا مركو الرجي في سورة النور وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم بها رجب وحاء ليلي ها قريان مركا أمارتي إندوه الله أبان ومركا ينفيرين مركا أمارتي حمان يا معاصي ينفيرين حمك تركها إلى ليان وحفظيان لكن قبل يجي مركا أمارتي بالله سبحانه وتعالى قل إرادة وحولي وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آيات بدان بمركا أمارتي يو الله سبحانه وتعالى كيها لي مهو عدينها يا قبل مركا حيلها شرفت إلى هاي يوناق إلى هاي حجابكو ومركا أمارتي قبل أي لازمته وحجابك الشرعي أي قادته ومركا إلهي درته وقادته ومركا إلهي كو إلى سنة إلي في الليستة آيات قرآن إلهي أصاري ويكل بانسا بريهن فاشون iyo maartay waxyaalo fara badan iyo waxa la iska sheegaa wax maartay wuxuu iska noqday libiski marka xijaabku gabadha waa inay marka maartay sida rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay fi surati an-nisa nabigiisu ilaahay la hadlay gabadhii muuminaadkana waa la hadlay ilaa yoomina waa la hadlaya dadkan hadda maartay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala markay ay fahmeen ama diinta ay qaataan gabdhaha muslimaadka marka khaasatan Soomaalida wuxuu ilaahay ku amaanay waxay maartay lagu amaanay inay xijaabkoodu marka maartay ay ka duwan yihiin xataa maartay xijaabiyaha kale oo dadka marka maartay ka duwan yihiin maxay rabbi subhanahu wa ta'ala markuu leeyahay ya ayuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna yu'raf la yudayn rabbi subhanahu wa ta'ala nabigiisu la hadlay dumarkaaga ka bilowba lagu yiri dumarkaaga ka bilowba lagu yiri ya ayuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika والنساء المؤمنين قبلها هذا كبد الوالي والنساء المؤمنين مؤمنين كدمر كذا آيات القرآن سودكتي يعني وحويان وحد مدام مانتا إنك إن الله ليس هجري وحمارنا مانتا نبي حسرات منكم ما كبح مدينة كب إلى مانتا مركي الحسابي كن يافر بقول يافرتن بشي مركي أمارتي كوبات بنا دكتور جرها برفيري مانتا إني سودكتي بعد مدام القرآن كا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين مؤمنين تمركا مارتي دمركا رجع قبله هذا مركا مارتي مؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين مركا حجابك وإن لفظ سنين وإن نقول المسلمات مركا مارتي رجع جانبتها إيا محانكو العضايا يدتك مركا مارتي وحي محرم كا وإن مركا مارتي إن مركا مارتي وشنين عورده هذا أما مركا مارتي إلهي وحكا أسترين مركا مارتي وحينين marka sidaa darteed waxyaalaha ka midka ee gabadha marka maartay muslimada laga rabo waxa weeye guriyihii baan gadaal ugu noqonaynaa waxaad ogsoon tihiin maanta waxaa ku soo kordhay caalamka waxa la yiraahdo dadku ay dhahaan digital marka maartay ama waxyaalaha marka maartay technology cusub oo casri ah ku soo kordhay technology cusub oo casri ah faa'iidana way leeyahay khasaarana way leeyahay khasaaraha ay leeyahay faa'iidada waxa ka mid ah waxay sahashay khayr qofkii u adeegsada khayr buu ka heli qofkii khayr u adeegsada khayr buu ka helayaa qofkii shar u adeegsadana shar bay u keenaysaa waxaa yeelay dad acdaa ah oo islaamka cadowgiisa oo diinta islaamka rabin oo dhaqankeeda rabin oo inay gabadha ilaasanaato oo dhalinyarada inay islaamsanaan rabin yaa waxay ku soo dhex tuurahayaan ay soo gelinayaan intaasoo wixii shar ku soo tuurahayaan dad muslimiin oo wanaagsan oo khayr badanna waxay soo gelinayaan khayrka teleefoonaha aan haysano iyo maartay mobilaha la haysto iyo maxaan ku raahdaa waxyaalaha aan isticmaalayno guriyaha isticmaalno ama TV ha noqdo ama laptop ha noqdo waxa dhahada waxyaalaha casriga oo dhan kulli dadka daayirta khaasatan waa inay gabdhaha muslimaadka ay markaa maartay ka digtoonaadaan wixii sharciga markaa maartay uusan ogoleyn waa inay markaa maartay sameeyno way waxa kamid ah waxa laga yaabaa in muxaadara iyo duruus lagu soo shubo ka dhageys duruusaasi muxaadaraadka waa khayr iyo wanaag weeye laakiin ha u gelin waxyaalaha kale markaa maartay sharka oo xambaarsan oo markaa dad islaam ka soo horjeeda oo dadka markaa maartay inay ku ciyaaraan rabo muslimiinta ha gelin waxyaalaha iyaga lafta waxay u baahan yihiin ilaahay in laga cabsado markaa maartay oo rabbi subhanahu wa ta'ala markuu taqwada amrahay qofka muslimka ah oo nabi sallallahu alayhi wasallam calayhi markuu rabbi subhanahu wa ta'ala amrahay إلهي سبحانه وتعالى إنا كبقنو نبي مركا التقوى يصير فسر حوري
يعني وحاويان اتق الله حيثما كنت بل حديثك مركا إحسانك هذا يحولي ربك سبحانه وتعالى إحسانك قفك حقوق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك waxyaabaha marka aan rabnay insha Allah inaan isku boorino maadaama oo xilli marka maartay waqti aan ku jiro gabdhaha muslimaadka meelahan oo kale to khayraadka lagu hayo meelaha duruusta hadii masaajid duruus ka socoto hadii marka maartay guriyaha ka socoto waa in ay marka maartay diinta ay gabdhaha muslimaadka inta rag uu ka qaadanayo hadii ka sii badan waa inay ku tala galaan oo على سبيل المثال ما أنتم قرأت الدروس ماشان كقاعدتين دروس تا أيضا قاعدتين أنت أتسوي سعوتين أو يسوي سعوتين ما كأمارك شيء يقول لك سعوتين وخير كسور هذا أجر بكون سعودي علم بسور هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة سهل له طريقا إلى الجنة ودوينك الجنة وجدك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا أركتان بيرها الجنة قرطة meelahan oo kale tooy xilq u dhigriyo weeyaan dumarkii hore nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi sida marka maartay ka sheekh sii sheegay markii aan maartay uu bilaabay iftaah kelimada uu furayay nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi rag oo inta uu dacwada maxay dhaheen ragii baa noo ka qaal noqday masaajidda la joogta meel kasta kula fadhiyaan jihaad bay kula aadayaan annaga laakiin waqtiga anaga waa iska yaraaday waqti baan uma hayst kolkaas nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi waqti soo maartay ayinta waqti uu sheegay gabadha heblalayda gurigeedana isoo tagay markaa martay halkaas uu ku wacdiyay oo ku waaniyay halkaas uu ku waaniyay oo ku wacdiyay marka waxa la rabaa gabdhaha muslimaadka iyo hooyooyinka iyo dhammaanteen mas'uuliyad diiniya iyo shucuur diiniya waa inaan dareeno oo inaan ogaano diintan ayada islaamka Allah subhanahu wa ta'ala uu ina siiyay ee wanaagsan ee qiimaha iyo qaayaha badan waa inaan garab istaagno garab istaagno maxaa lagu garab istaagi waxbarashada oo barato waa garab istaag muxaadaraadku xayrta waa garab istaag gacantooda wax ka bixisa waa garab istaag sawaadka muslimiintood bixisa waa garab istaag waxa ku garab istaagaysaa markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala mar hadii aad markaa maaratay faa'iido iyo ajir badan waad ka helaysaa inta faraha badan dumarka mashquul fara badan iyo wax badan inay ku jiraan waa suuragal لكن وقتنا كمدا والسمايا إن المركا مارتي دين ربي سبحانه وتعالى أدقالتان ودروس أدقالتان كانوا ورقبتان ومركا إلى مارتي مساجدك هي مركا مارتي مامولك توس أو حناتان وحاشي كجرين نبي صلى الله عليه وسلم عليه نافك حولها وعناه ورابها عناه نافك بارداق ومركا مارتي بادية نكسو قران لكن وفي بادية سو مرة قران هيا ورابها حولها وحودا قابوري markay soo daaqayaan xooluhu neefka dhinaca u jira oo ka soo dhacayo halkaas uu markaa maartay nima yaakulu dhiibu min al-ghanami min al-qasiya neefka barbarka u jira iyo ka soo dhacaya macnaheedu waxay tahay muslimiinta arrimada dhan kulli rag doorba waa ijtimaaci weey waa mid iyo markaa maartay waraabaha marka waxa kamid waxa la mid ah shaydaanku wuxuu la tagi qofka markaa maartay ka dhaxbaxay muslimiinta meel cid ku oodano ka warhayno markaa maartay laakiin waxaad ogaataan mar haddii meelahan oo kale aad ku badataan khayrkiina wuu badan hayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala cimrigiina markaa maartay uu barakayn hayaa waxaad heleysaan iimaankiina oo markaa maartay kobca oo markaa maartay ziyaada khayraadka faraha badan ee markastaba markaa maartay ragaas ay culimada u diyaar garoobayaan inay markaa maartay walaalaha muslimiinta wax taraan ay rabaan waa inaad ku garab istaagtaan idinkuna kelimadu waxaan ku soo khatimaa insha Allah oo maartay aan ku soo gabagabayn doonaa sidoo sheekhu sheegay su'aalaha jiri doona markaa maartay xilligiina markaa maartay u talagalina waan maraynaa waxaan ka codsanaynaa in sidaan markaa maartay aan meeshan ugu kulannay waa inaan noqono dad meel ay joogaanba muslimiinta arrimahooda iyo howlahooda iyo diintooda ka warqaba oo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u helaan naxariistiisa iyo markaa maartay ridihiisa meelahan oo kale markii la yimaado waa arteen waa la ducayn oo muslimiinta baa loo ducayni meesha kii xanuunsanaa baa loo ducayni kii markaa maartay waxaysan baa waxayni khayr badan baad kala kulmaysaan khayr badan baad kala kulmaysaan meelaha markaa maartay inta badan lagu hayo wixii ilaahay raali gelinaha la iska ilaaliyo xanta iyo maartay inaan ku sii noqdo mawduuca ma rabo xanta
iyo waxyaalaha marka dhexda shaqeynta iyo iska dirka kale waxyaalahaas oo dhan ka fogaada waa lagu naar mutaa marka lagu cadaab mutaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ma ka baryeena inuu marka ila maartay naga yeelo hadalku waa dhageystakiisa wanaagsan qaata اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله الباب جزاكم الله خيرا